ونقضة تصالة وأنا إسكع السلوح حلك أن أمد الصومالية دو هاي أنا جو دوري من لماذا ذلك warka degdega ay haatan soo gaaray ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya uu aqbalay markii uu haatan khudbad 6 daqiiqo soconaysay uu jeediyay iscaslaadii maanta lagu subiyay asagoo sheegay inuusan wixii maanta ka dhacay baarlamaanka aysan ahayn wax sharci ah laakiin hadda asaga uu turayo bulshada uu iska casilayo xilka ra'iisul wasaarenimada ee Soomaaliya qayre oo hadalkiisa carab badan ay ka muuqatay wajigiisa laga dhansan karay inuu soo ku qanacsanay maanta wixii dhacay laakiin uu soo noqday ra'iisul uu cimriga dheeraa ee 3 sano bar dowladda federaalka ee Soomaaliya uu ahaa ra'iisul wasaare taariikhda aysan soo marin 30 sano ee u dambeeyay ayaa ugu dambeeyay sheegay inuu iscasilay asagoona ku nuuxnuuxsaday in ummadda Soomaaliyeed uu turayo dhanka kale qayre wuxuu ka soo sheekay dowladdiisa waxyaabay u qabsoomay intii ay jirtay oo waxyaabo badan ayuu tiriyay ay ka mid tahay deyn cafinta inuu ciidamo dhisay waxyaabo badan oo badan آخركينا قير وحقوسه وقبي إنه عفس ويديستي أمد الصومالية حدي وحكا قلدمين مانتي أيا رجل وزراء قير سفضود عن لليابي ونو نقضي وزاري وفوضا حلك لغا تورا أبد تاريخ الصومالية الصومري أيا وحكا يرتضو دقيقة قبي أهانتيس بحلك لوغا قاضي إيكون يعوديين حلدبان قارا بقول يوتضباطا حلدبان كلافك قير إفرماجا يمدوين كي دم بسوجي تمايا wuxuu wasalka ku hayaa doorashada soo socotay Soomaaliya ee dhici doonta 8 February madaxweynaha lagu xamanayo ama u kaambeyn gareenayo in waqtiga ugu darsado halka wasaaruhu uu rabo inuu doorasho u aado uu tartamo xilka ugu sareeya dalka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya inaan loo codayn anigoo og inaanay waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka haddana waxaan go'aansaday inaan anigu ummadda Soomaaliyeed u noqdo tusaale oo aan iska casilo xilka aan ummadda Soomaaliyeed u hayay anigoo dooraya midnimada dalka iyo inaan dib loogu laaban burbur iyo dhibaato si aan ugu tiro shacabka Soomaaliyeed qaybna aanan uga noqon khalkhal iyo dib u dhac siyaasadeed dalka ku dhaca mid dhaqaale iyo mid amni mid bulsho ayaan sida ummadda Soomaaliyeed ugu baratay waxaan noqonayaa tusaale inaanan marna halkan xukun u joogin laakiin aan u joogay inaan shacabka Soomaaliyeed u adeego waxaan u mahad dadka dhaliila qayre ayaa ku tilmaamay inuu ahaa nin hadalkiisa iyo ficilkiisa inta badan aysan islahayn uu caan ku ahaa khudbadaha laga soo shaqeeyay iyo hadalka golaha laga jeediyay oo aad u xariif ugu ah in la soo jiito dhalinyarada asagoona isticmaali jiray teknolojiyadda casriga si uu sumcadiisa kor ugu qaado halka taageerayaashiisana ay ku tilmaameen inuu ahaa wasaarihii u kartida badnaa ee soo maray jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya 30 sano u dambeysay asagoona ahaa wasaare aad iyo aad u firfircoon baal dahabana ka galay taariikhda walba uu ahaa qayre maantay waa qof shacab ah وانا رجاري هوري Soomaaliya sidee u aragtaa aqbalaada uu aqbalay ra'iisul wasaare qayre in xilka uu iska casilay wa Maxamed Alfa salaamullaahi calaykum